السلام عليكم guys ku soo dhawaada casharadeen YouTube ka taxnaa aan ugu baratay hadaan oo kale isbuuc walba in idin soo gudbino casharkeen isbuucan waxa uu hadli doonaa mowduuc aad u xasaasi badan inta aan casharka ugu gudan galin ka hor waxa idin codsanayaa inaad tiraadid like and subscribe ka tagin casharkeen waxa uu hadlaynaa mashiinkan aad u jeedin oo loo yaqaan calorimetry mashiinkan calorimetry loo yaqaano waxa loo isticmaalaa mar alla markaad rabtid inaad baarid hematological-ka sida hemoglobinka kale inaad manual u baartid oo kale waxa isticmaala mashiinkan ama all biochemistry diseases oo kale cudurrada biochemistry arta inaad baartid sida glucose protein cholesterol iyo electrolytes xataa waa loo isticmaalaa waxa ku fududeynaa manual ahaan oo isticmaale wuxuu ka kooban yahay nanometer density wax lagu cabirayo mid walba cabir gooni u leeyahay mid waxa loogu talagalay 450 nanometer anyone aad u isticmaalayso ku xiranta dependent-ka aad u baahan tahay nanometer-ka u baahan tahay geesanay marka geesto kadib waxa sameynay dulkaas ku muuqdo oo meesha kaaga muuqdo oo sulkiga saaran dulkaas ay gelinay tube loogu talagalay jiro meeshan oo number 1 kugu qorantaan waxa kugu soo qormaayo xisaabaadka kugu soo qormaayo xisaabaadka marka kugu soo qormaan kadib waxa sameysanay intaysan xisaabaadka kugu soo qormaan ka hor waxa diyaar gareysanay saddex tube soo qaadanay tube kood waxa ku qoray test tube kale waxa ku qoray blank tube kasta waxa ku qoray standard saddex tube marka soo qaadad kadib tubes kuwaana meesha ku jiraan tubes ka soo qaadad kadib waxa imaanay baalkaaga tube kasta waxa ku jira kan kood waxa ku shubanay testing for blood kan labaad waxa ku shubanay for standard kan saddexaad waxa ku shubanay for blank distillation water ku shubanay whole reagent waxa la isticmaalaa in test walba wuxuu leeyahay whole reagent waxa la testing isticmaalaysa ku xiranta example waxa isticmaalaysa hematology dripkan solution waxa la yaqaan waxa isticmaalaya ina baaro glucose reagent ama glucose na baaro glucose reagent isticmaala whole reagent baalku wada daree mid kasta marka whole reagent ku wada dartid tube waxa kugu jira reagentiga tube kaas soo qaadanay mar alla marka tube walba soo qaadatid waxa kor imaanay baalkaaga tube caadi wax soo diyaarinay tube caadi marka soo diyaarisid kadib tube-ka caadi wax u transfer gareynay tube-ka hadda shaashad kaaga muuqdo oo baalkan blue ku dhex jiro tube-ka waxa loogu talagalay online lagu isticmaala for calorimetry machine kadib tube-kan oo transfer gareynay marka tube-ka oo transfer gareysa kadib waxa sameynay tube-ka waxa ku shubanay tirada adiga aad soo cabiratay oo baalka test tube ku qornay each one waxa ku shubay one tube waxa ku hormarnay balaanka gelinay balaanka marka gelisay for waxa ku xisaabtamay capacity-ga how many nanometer ana haysta inta nanometer aad haysta iska cabir oo iska fiirnay mar walba test isticmaal kartaa nanometer ku isbedela reading meesha ku qoran waa isbedeleen oo ujeedo waa kala duwan yihiin reading ana u baahana gashana marka midkaan u baahana waa gashana midka u baahana gashte marka gashte inta nanometer dhawa fadhiisi marka baalkii fadhiisiste oo aan u diyaarsan ujeedid waxa soo qaadana marka tube-ka ana u baahanahay tube-ka waxa ku cabirnaa midka ugu horeeya la isticmaal horba la gelina waxa loo yaqaan blank waxa loo gelinaa for setting of nanometer of my calorimetry reading kiisa oo akhrina reading ugu horeeya marka uu soo baxo oo inta 0.0 inta soo baxdo ay soo baxayso 0.1 marka uu soo baxo dependent waxa ku xisaabtama marka density aniga isticmaale 400 nanometer 450 nanometer waxa isticmaal ku xisaabtama dan marka galiyo tirooyinkan ay soo baxay waxa soo baxay -0.28 ay soo baxay dan waxa ka jara xisaabaadkii waa toosina midkan waxa loo yaqaan all the version waaye kuwa hadii ma digital kama waa yareena xisaabaadkiga waxaan ka saaraa tirada oo minus ku jiro mar alla marka tirada minus ka saaro oo xisaabaadkii aan ka dhigo xisaabaad caadi ah oo zero set marka gaarsiin kadib waxa bilaabanaa inuu wax cabirayo blankiga ku set gareena blankiga wuxuu soo saaraa reading soo saaraa blankiga markuu soo saaray example wuxuu soo saaray 0.14 oo kale dan waxa isticmaala baalkiga waxa soo qaadana testiga ama waxa soo qaadana standardka key food waa gelinay reading standard meel ku qornaa dan waxa isticmaala waxaan gashanaa readingka blankiga readingka testiga يعني blankiga ka bilaaba testiga ku xujina dan waxa ku xujina standard saddexdo reading marka qortay mid walba mar walba waxa la rabaa marka standardka inuu ka weynaado testigiga dan xisaab lagu xisaabaa jiro xisaabta waxa loo yaqaana hemoglobin kala baaraya concentration of hemoglobin waxay la mid tahay absorbance of the test oo loo qeybay absorbance of the standard oo loo garaacay dependent standard ana haysto 16 loo garaaca 16 ku garaacay 16 marka ku garaaco tiradaas ana aan xisaabiye aan waxa soo gelinaa baalkiga sometimes wuxuu naqraa reagent-ka isticmaal in loogu talagalay in 100 lagu dhufto times 100 oo noqday dependent waxa ay xukun baalkiga markaas kadib waxa soo baxayo xisaab ciyaareedka ana isku dardaray iyo aan ku dhuftay tirada
waxa ay soo baxay inta u baahnay female-ka waa taqaanaa hemoglobin waxa ku soo baxay 11 ilaa 15 milligram per deciliter ama male waxa ku soo baxay 12 ilaa 18 milligram per deciliter reading ku soo baxay u fiirine abnormality miya hadoo ka hooseeyo waxa la abnormality waa hadoo ka sar mareen waxa waay badanaa ma dhaceyso inta ma la fiican yahay xaaladiisa hadoo boodh dhaxda inta u dhaxeyso oo joogo normal waay dadka badanaa saas loo report gareeyaa si aan u soo gelino muuqaaladan ka sii badan na dhiirigeliyo waxaan ugu dhiirigelisiin inaan muuqaaladan aan sii badino oo aan mashiinada iyo waxyaabaha shaybaarka aysan sharaxno haddaad kanaalkeena ku cusub tahay like noo saar subscribe-na noo dheh waana mahadsantihiin mawduuca isleedah noo soo geli commentiga noogu soo qor anaa idin soo gelinayo waana mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you